stepkan koowaad waxaa ku baran doonaa sida ula soo degi lahayn exchange aan naga rabin wax passport ama document ah. Marka la soo degnana waxaa ka dhex sameysanaynaa account aan ka maalgashan karno cryptocurrency-ga. Marka si aan ula soo degno waxaa tagaynaa Play Store-ka ama App Store-ka iPhone and Android midka isticmaalaysidbo. Kadibna qaybta searching-ka ama wax laga baaraa waxaa ku qoranaa Coinex. Markuu saan noogu soo baxo waxaa leenahay install waa sugeena xawo intuu noogu soo degaa. Markuu noogu soo degana waxaa leenahay enable kadibna open. waxaa noo soo furma page-ka koowaad ama boga koowaad. Si aan ugu gudubno waxaa taaban karnaa qaybta ugu sareysa skip ama sidoo kale waxaa taaban karnaa falaarta hoose si nagista u dhahno aan ugu gudubno bogaga xigo. sida wada arkayna page-kan wuxuuna siinayaa log in iyo sign up. sida wada ognahayna log in waxaa ku gala dadka ciwaanada leh. si aan marka ciwaan cusub u samaysano waxaa leenahay sign up. markuu boga sign up saan noogu soo kacana qaybta kore waxaa gelinaynaa emailka ay ku qoran tahay gmail-keena. qaybta hoose password ay ku qoran tahay waxaa gelinaynaa password cusub. haddaa rabtid passwordkaaga gmail kadib waa u gashan kartaa. haddaa rabtidna password cusub waa u samaysan kartaa. marka ilaa iyo 3 shuruudooda jirto oo passwordka looga baahan yahay waa inuusan ka yaraanin 8 waa inuusan ka badanin 20 8 ilaa iyo 20 xaraf ama number ah loogu talagalay qofka inuu ku samaysto. passwordka qofka markuu samaysanayana waa in passwordkiisa ugu yaraan hal number inuu ku jiro iyo hal xaraf oo xarfaha waaweyn ah. tusaale ahaan magacaaga kale haddaa ka dhiganaysid xarafka koowaad oo kale waa weyneynaysaa. marka magacaaga aa qoratidna hal number oo kale raacinaysaa. qaybtan hoose marka ee referral code-ka waa optional waa iska dayn kartaa. kadib waxaa leenahay sign up. waxaa usoo gudubna qaybta ugu sahlan badanana dadka ay ku dhibaatoodaan. waxaa la rabaa labadan shape inaa isku aadina ee loofka ah. falaarta hoose jiidina haddii saan oo kale qalad uu kaa dhaco aa ku aadin waysid ama waxyar ay kala qaloocdaan uu kaa diidi doonaa siduu hadda anaa nooga diidabo. kadibna wuxuu ku siin doonaa shape kale. marka shape-kan kale markaa falaarta soo jiidid oo labada shape ee isku dul hagaagaan oo isku aadaan waa sii daanaysaa faraha qaaysa markaa ka sii daasid calaamada saxda kuu saaraa. markuu saxda kugu saarana wuxuu code u diri doonaa ciwaankaaga gmail-ka. kadib waxaa leenahay minimize oo dhexda uga baxanaa si aan u aadno gmail-ka code-kan aan usoo fiirsano. waana rajaynaa inaa kala garanaysay minimize-ka iyo maximize-ka iyo mobile-ka wax uu idinka bilaaban yahay qaybta navigation bar-ka ama bottomada ugu hooseeya ee telefonka. marka gmail-ka markaa saan usoo galno waxaa noo soo dhacay bashqadii verification code-ka uu ku qornaa. kadib code-ka fiirsanayna waxaa kusoo noqonaynaa haddana Coinex-kii ama Coinex-kii. waxaa gelinaynaa marka code-ka markaasaan u gelino si automatic uu qaadana. kadib wuxuuna weydiinaa su-aashan haddii aa cusubta marka new waa dooran kartaa. haddii kalena waxaad dooran kartaa meesha ugu hooseysa skip ay ku qoran tahay si aa ugu gudubtid. bashqadan waxaa iska leenahay cancel. sidoo kale bashqadan ku xigta ayadana waxaa leenahay cancel. waxay noo tilmaamaysaa inaan setting-ga galno kadibna app push aa ka doorano kadibna deposit iyo withdrawal-ka aa furno ama lacag dhigashada iyo lacag la bixitaanka haddana way noo furan tahay. markaas haddii meeshaas ku furneen oo kale furo waa muhiim. intaasna waxaa noogu eg qaybta koowaad oo aan kula soo degayna appka account aan uga samaysanayna. hadda appkana waa la soo degna account-na wuu noo samaysan yahay. qaybta xiga marka waxaa ku qaadan doonaa sida baaskii aa ugu xiran lahayn account-keena.